بسم الله الرحمن الرحيم golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed ayaa shalay oo 28 iyo maanta oo 29 ahayd waxa ay ku shireen magaalada Muqdisho shirkaas oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa ka qayb galay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaa sidoo kale qadka fogaan araga kaga qayb galay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa isna goobjoog ahaa shirkaas madaxdu ay ka hadlaysay oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa ugu horeyn ajanduhu waxa uu ahaa oo ay ka hadlayeen warbixin horumarkii laga sameeyay wixii ka dambeeyay heshiiskii halkan ay ku yeesheen 27kii May oo ay iska xog wareysanayeen wixii ka soo kordhay shirkaasi sidoo kale waxa ka mid ahaa arinta ama shaqada la taliyaasha guddiga farsamo ee golaha wadatashiga qaran arrimaha doorashooyinka ka shaqeynaya sidoo kale waxa laga wada hadlay qorshaha amniga doorashada habraaca xaqiijinta qoondada haweenka ayaa isna aad loogu dheeraaday oo la falanqeeyay marka arinta laga hadlayna golaha wadatashiga qaran waxa uu isku raacay in murashaxiinta ma qoondada haweenka lacagta ay bixinayaan ama lacagta khidmada ay bixinayaan la dhimo 50% taasoo ay codsi maaragtay ka yimid ururada haweenka iyo wasaaradaha haweenka isla markaana ay tixgeliyeen golaha wadatashiga qaran iyagoo fiirinaya duruufaha haweenka sidoo kale waxa laga wada hadlay habraaca maareynta maaliyadda doorashada iyo waliba jadwalka doorashada oo la soo saaray jadwalka doorashada golahu waxa uu isku raacay jadwalkan halka ku qoran oo ah kow tababarka iyo doorashada guddoonka guddiyada waxa uu dhacayaa 30 Juun oo ah bari ilaa iyo 5 July waa tababarka iyo doorashada guddoonka guddiyada ay sameynayaan waa guddiyada ka shaqeynaya doorashooyinka labo doorashada aqalka sare waxaa la qorsheeyay inay dhacdo 25 July ee sanadkan 2021 sidoo kale diyaarinta goobaha codbixinta doorashada waxaa la diyaarinayaa 23 July afar soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada waxay noqonaysaa 15 July ilaa 10 August 2021 shan doorashada xildhibaanada golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay noqonaysaa 10 August ilaa iyo 10 September lix dhaarinta xildhibaanada iyo doorashada guddoonka labada aqal waa 20 September 2020 sida la qorsheeyay ugu dambeyntii doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay dhacaysaa 10 October 2021 kaasi waa jadwalka doorashada waxayna tababar socotay magacaabis uu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii uu arkay qodobada 99aad iyo 100aad ee dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya markii uu arkay go'aamada heshiiskii 27kii May 2021 qodobkiisa saddexaad ee hanaanka xalinta khilaafaadka gobolka Gado xubintiisa C oo qeexaya magacaabidda guddiga dib u heshiisiinta Gado oo ka kooban dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka oo aysan ku jirin Jubbaland markii uu tixgeliyay baahida loo qabo in la dardargeliyo geedi socodka doorashooyinka markuu garwaaqsaday inay muhiim tahay in dib u heshiisiinta la sameeyo arrimaha Gado ay aad muhiim u tahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu magacaabay qodobka koowaad magacaabis xubnaha hoos ku qoran kow mudane Maxamed Cali Caadle wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle labo Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee Puntland أحمد مدوبة نونو وزيرك وزارة قرشنت كوفر قلبت سوماليا iyo aadan Cusmaan Xuseen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee Galmudug qodobka labaad xubnaha guddiga waxaa la farayaa in si degdeg ah ay u howlgalaan una bilaabaan arrimaha dib u heshiisiinta iyagoo la tashiyo la sameynaya dhammaan dhinacyada ay dib u heshiintu ay qusayso qodobka saddexaad guddiga marka ay howlahooda gudanayaan waxaa hagaya go'aanadii 27kii May 2021 qodobkiisa saddexaad qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka shanaad xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waana uu saxiixay wabillahi tawfiiq